الله داخله درجنا الرسول شرفنا دينتنا جنة دوكسيله نار بادد ماله توقنا علن كنا kuwii diifta naga maydhay iyo dooraysanba qaybo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo isugu soo baxay xafiiska maamulka gobolka Togdheer oo goobjoog ahaayeen barasaabka xigeenka gobolka Togdheer ahna kusmaha barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliland mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Togdheer ayaa taageero waxa loogu muujinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi qodbadihii kala duwan ay ka jeediyay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka socday dalka Djibouti bulshadan ku dhaqan gobolka Togdheer isugu soo baxday taageerada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmada saraakiisha kala duwan ee ciidamada gobolka Togdheer ayaa dhambaal hambalyo ah u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxay sheegeen in Jamhuuriyadda Soomaaliland wax waqtigan gurgurtan gali karaysa waa maalin sharaf leh waa maalin farxad leh waa inaynu taageerayna madaxweynaha qiimaha badan qodbadii sharafta badnayd ee uu ka jeediyay Djibouti ee uu ku bahdilay ay hoos u rogtay nimankii dilaalinta ah ee Soomaaliland ibinayay waxa armi la haysto ifisada ka dhacaysa iyo inta kaymaha la leeyahay adduunku ku jaraysa idilkood ba dhamaan Ameerika laga keenay Ingiriis iyo Ruush England ta maqasheen aflahaarka Mareykan afweynay la socdeen hadda maanta aqoonsi iyo xabaad ka rabtaa ilka kiidhiga baad wargootamiya Allahu madaxweynaha looyarka halgamaha deebadnahayo inuu taageerayna sidoo qulbadii shalay garanaysa ugu hadlay sidoo wadanka u difaacay warwalaalaynu istayno ictiraaf kana nasiiya waxba hayskaayo hor taagina hana daba boodina de sida nagu daay xaasidnimadu ma wanaagsani annaga waxa nagu dhacay 2 sano garaacisa oo madfici iyo kaarihi iyo diyaaradii shilinkeega laga iibiyay intay Hargeysa ka kaceen ay dib noo duqeeyaan in ma waxa yeelaysan aan isnabadgeliyayno iyo qodbadii uu madaxweynuhu ka jeediyay ee qiimaha badnayd ayaynu aad iyo aad ugu hambalyeynayna Soomaaliland ictiraafkeeda siiday ka horbayda waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waana kugu hambalyeynayna waana kugu garab taaganahay guud ahaan shacabka qaranka Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo leenahay halka waxaan u marinaynaa bulshada reer Soomaaliland hambalyo iyo bogaadin iyo iyagoo ilaashada waajibka ay leeyihiin dalkooda diintooda iyo calankooda hambalyaanu idin marinaynaa iyo adkayn aad ku adkaataan danteedna Soomaaliland darnimo oo aad ku adkaataan waxaanu maanta u soo baxnay oo aynu taageero muujinayna waxa weeye waa qodbadii uu ka taariikhi ahayd uu ka jeediyay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka jeediyay Djibouti ayaynu u soo baxnay inaynu taageero u muujino dhammaanteen ciidan baynu nahay qarankeena inuu difaacayna shacabka reer Soomaaliland waa ku garab taagan yihiin dhammaan waan ku garab taaganaa geesinimada iyo raganimada iyo qodbada wanaagsan iyo sidii sharafta lahayd ee golaha uga muuqateen wafdigii Soomaaliland ee hogaaminaysa ma aha mid aynu cayaar iyo si hawl yar midna gacanteena uga baxaya ma aha mowqifka adag ee siyaasadeed ee maanta aad madaxweyne aynu maanta aad mayalka ugu haysa dalka waan kugu hambalyeynayna madaxweynaha iyagu waa ku mahadsan yahay khudbadiisii wanaagsanayd iyo go'aanka uu ka qaatay shirkii Djibouti la isugu tagay go'aanka uu ka qaatay waa ku tahneedeynaa waana ku garab taaganahay waana nagu matala waryaan colaadi inoo kala kordhin siyaad barnaamijkii ka bax colaadi ma taalo dawlad Soomaaliland la yiraahdo oo ilaa 60kii jirtay aan ugu tahneedeynayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay khudbadii qiimaha lahayd ee geesinimada lahayd ee xigmadda ku fadhiday ayaa waxay ahayd mid naga turjumaysa haddaan nahay dawladda Soomaaliland iyo shacabkeedaba Soomaaliland guul baa leenahay ha horumarto hambalyo Allahu Akbar soo baxan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu taageeray khudbadii uu ka jeediyay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ka socday dalka Djibouti ayaa wuxuu ku soo beegmiyay xilli la filayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maalinta bariya iman doono dalka Maxamed Cabdi Badda Cas 24 TV Burco.